السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka Karin iyo Qorxin oo waxaana idin daadihinayso anigoo Haruun maanta waxaan ka hadli doonaa shay muhiim inoo ah anaga inaan ka hadalno mise ogaano taasoo ah periodka and what causes the cramp pain caadada xanuunka waxa sababo gabarta caadada waxay u imaadaa xanuunka dad badana ay receive garayaan badana 100kii 10% heli karta xanuun daran kuwa xanuunka u horeeya kuwan xanuunka u dambeeya kuwan waxa laga yaabaa xanuunkii hore iyo gadaalba in uu noqdo hadana gabartu waxa laga yaabaa xanuun badan gabarta inay dareemto midaas oo ah kuwa lagu xanuun inuu ku dhaco kuwa dhabar xanuun inuu ku dhaco kuwa inay matagaan kuwa inay faint gareeyaan kuwa sidoo xanuunka ugu yimaada qof walba sidoo jirkiisa ku response gareeyo waaye waxaan rabnaa inaan ogaano sheeye qaarkood maadaama gabarta jirkeeda uu wada furan yahay markaas oo jug walba ay ku dhacdo ay u sababi karto inay madhaleys xitaa ay noqoto inay gabarta iska ilaaliso showerka wuxuu u xun yahay gabarta maadaama marka ay daily ay u qubaysanayso scalpka hada iskaga bilawdo maxaan ka wadaa madaxa hada iskaga bilawdo jirkiya dhana furan hormoneskeeda way dili kartaa gabarta waxay noqon kartaa less reproductive ay noqon kartaa ma dhali karto waxa laga yaabaa hada gabarta xitaa ay tahay de maanta ku soo bixin waxa laga yaabaa inay ku soo baxdo at the age of 40 ama sameelahaas inay noqoto hadana waxyaalo qaarkood oo badan jiro anaga sameeyno laakiin qalad inoo ah like qubayska daily-ga madaxa uu daran yahay maadaama jirka gabarta ay furan tahay coffee-ga kale hadana waxa la diidan yahay gabarta inay isticmaasho cold drinks anaga waa isticmaalaa Soomaaliya laakiin please gabdhaha waa inay iska ilaaliyaan cold drinks ka dhan waa inay iska ilaaliyaan maxaa isticmaali karnaa si xanuunkaas gabarta ay uga tagto waxa isticmaali kartaa liin hadarat biyo ina qandacsatid ayaa liinta ku miira kartaa cabi kartaa mase sida ratid ayaa u cabi kartaa as your choice laakiin liinta waa shay muhiim ee gabarta way caawinaysaa dhiiga jirka ku xirmi lahay wixii dhan ay caawinaysa inay ka soo bixiso hadana waxa kale oo la rabaa gabarta oo shay muhiim u ah xitaa before her period into imaan xanuunka ee dareenta markay is aragto inay biyo badan isticmaasho biyahaas waa muhiim xataa after the period markay aragto biyo qandac inay isticmaasho way caawinaysaa dhiiga si fiican ayuu soo baxayaa ma sha Allah marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideysateen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka bogasho wacan